Assalaamu calaykum. Markaan joogno goobaha xukunada ay ka dhacayaan, waxaan arkaynaa dadyo fara badan oo lagu xukumay xukuno kala duwan sida dilka. Dadka lagu xukumay dilka waxaad arkaysaa inay ka bixinayeen falcelin. Qaarkood way suuxaan, qaarkoodna waxay isku dayeen inay dagaalamaan. Laakiin maanta waxaa idin soo gudbinaya falcelinta ay ka bixinayeen madaxda xilliga lagu guda jiro ku dhawaaqida xukunkooda dilka ah. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. hore dalka Masar Mohamed Morsi xilliga ay go'aamisay maxkamadda Janaayatul Qaahira xukunkiisa iyadoo lagu soo eedeeyay inuu la shaqeynayo dalal shisheeye iyo kooxo argagixis ah oo lagu xukumay dil daldalaad ah. wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Masar ee lagu xukumay dil. بمعاقبة كل من المتهمين محمد مرسي عيسى العياط عصام الدين محمد حسين العريان بالإعدام شنقا. أرفض الإجراء وأرفض ما قيل وأرفض المحاكمة وأرفض كل ما يجري في هذه المأساة وأرضى بالقضاء أن يكون جزءا منه. marka aan isdul taagno xoogaha yar Mohamed Morsi wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Masar ee si xor ah loo soo doorto. 3 Juun sanadkii 2012 ayuu si rasmi ah u qabtay madaxtinimada dalka Masar. Sanadkii 2012 xilli uu socday weerarkii ay Yahuudda ku hayeen Gaza ayuu yiri, Gaza ma ahan kaligeed, anaga ayaa garab taagan. Masar way ka duwan tahay shalay sidii ay ahayd. gudbiyaasha waxaan u sheegaynaa in uu lacnad ku noqon doono dhiiga ay daadeen. إننا اليوم أمام هذا العدوان نقول للمعتدي لن يتحقق لكم سلام بالعدوان، لن يتحقق لكم سلام بالعدوان، ولن يكون لكم استقرار بالعدوان، ولن تنالوا خيرا على هذه الأرض بالعدوان. إن الحرب لا تؤسس الاستقرار أبدا ولا تؤسس لسلام أبدا، وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم وتكون محركا لكل شعوب المنطقة ضدكم، وإنكم لن تستطيعوا أن تقهروا شعبا ولن تستطيعوا أن تقتلوا أمة. inta xukunka uu hayay oo hal sano kaliya ay ahayd ayaa godoominta laga qaaday Gaza. Nambarka 2 Barzam Ibrahim Hassan At-Tikriti waana walaalka Saddam Hussein kooxo ay yihiin, wuxuuna ka mid ahaa madaxdii sirdoonka dowladda Iraq. waxaana lagu xukumay dil daldalaad ah. المحكمة الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالإعدام شنقا حتى الموت. waxaana lagu fuliyay sanadkii 2007. nambarka 3 Nicolo Tashawisko ma ogi inaan si fiican ugu dhawaaqay magaca, laakiin waxaa loo baahan yahay inaad dhisaadid haddaad si fiican ugu dhawaaqay. muhiimadda waa inaad fahantid oo keliya. wuxuu ahaa dictatori shooyi ah. wuxuu hukumi jiray Romania sanadkii 1965 ilaa 1989. Romania waxaa ka dhacday kacdoomo looga tuuray xukunka, waxayna ka dhacday maxkamadeyntiisa ciidanka. waxayna socotay 2 saac kaliya. lagu xukumay dil dalaad ah. waxaana lagu fuliyay dilka asaga iyo xaaskiisa asagoo telefishinka hortiisa taagan. waxaana lagu furay raas. waxaana lagu eedeeyay jariimado soo horjeeda bani'aadanimada iyo burbur dhaqaale. nambarka 4 Saddam Hussein madaxweynihii hore ee dalka Iraq iyo hogaamiyihii guud ee ciidanka. waxaana lagu xukumay dil daldalaad ah. waana lagu fuliyay dilka. waxaana lagu eedeeyay falal dambiyeed ka soo horjeeda xuquuqda bani'aadamka iyo dilka 148. الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة العملاء. kadib duulaankii Mareykanka Iraq sanadkii 2003 waxaana lagu fuliyay subaxnimo Ciidul Adha ay tahay oo waafaqsan 30 Diseembar sanadkii 2006.
Nambarka shanaad ahna kan ugu dambeeya Cumar al-Mukhtaar wuxuu la dagaalami jiray gumaysiga Talyaaniga isagoo jira 53 sano wuxuuna la dagaalamayay in ka badan 20 sano wuxuu la galay dagaalo fara badan ilaa ay ka soo qabtaan ciidanka Talyaaniga isagoo dhaawac ah lagu xukumay daldalaad ah. حكمنا عليك عمر المختار بالإعدام شنقا. إنا لله وإنا إليه لراجعون. waxaana dilka lagu fuliyay isagoo ah qof da ah oo xanuunsan xilligaas wuxuu jiray 73 sano. hadafka dilka Cumar al-Mukhtaar wuxuu ahaa in dadka Liibiya si macnawi ah ruuxda looga dilo dadka Liibiya oo diidana gumaysiga laakiin natiijada waxay noqotay taas cagsigeeda waxa ay soo taray kacdoon laga soo horjeedo gumaysiga Talyaaniga jada waxay ka soo cilaatay in Talyaaniga laga saaro Liibiya. intaan ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.